madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Caamay oo magaalada Garowe kula hadlay TV-ga dowladda Puntland ayaa ka hadlay dagaalka ciidamada geesiyaasha Puntland ay ku xoreynayaan gobolka Sool wuxuuna sheegay inaan cidna joojin karin dagaalka inta maamulka Hargeysa taaka kamid ah dhulka Puntland ay haystaan intaan hadda aad la socotaan laba dagaal baa dhacay mana joogsanaya dagaalkani wararka nala soo weydiinayay ummaduna soo weydiinayso waxa aan ka qabnaa waxay tahay hadii عالم أودن يسوي ماده وحيلة هاي حقيقة مرنا ببلان كمدة جدون حقيقة وحوي أنت تاكدول أو أي بلان لا هاي سومالي لان هاي ستو أما مامل كاسي أو هاي ستو دجال كان اسمه تاجدونه أنتو دونه بهجارو وحيلة هاي إن ماذا يرير إلا سو مرن حبابي إن لقيت دايو إن أنا دمان إن أنا داوع من إن أنا نلشود kuseegin halka madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhinaca kale si kulul uga hadlay dhibaatada maamulka Hargeysa ku haya shacabka magaalada Laascaano isagoona beesha caalamka ugu baaqay inay fiiriyaan haweenka dhalinyarada waxgaradka iyo suxufiyiinta sida xaqdarrada ugu xiran xabsiyada Laascaano isagoo injineer Caame Xusay in maamulkaasi nafla caariga uu miciin biday xariga shacabka waxaan sheegayaa international community-ga iyo Soomaalida oo aan Soomaalida horeysiinayo international community-gana dambaysiinayo in maamulkaas nafla caarig baan hadda u arkaa waxa uu sameeyo runtii maamulka nafla caariga ah in uu ummadii dhibay xabsiga ka buuxiyay dumarkii iyo ciyaalkii iyo nindoorkii xabsiyada ka buuxaan waxaan maqlayaa UN-ta qayb kamid ah inay Laascaanood ku soo wajahan yihiin iyo Puntland labadaba Garowe waxaan jeclahay inay jeelasha tagaan waxaan jeclahay inay arkaan qadiyada dhabta ah maamulka nafla caariga ah uu dadka ku xirxirayo waxaan leeyahay Peter de Klerk iyo inta imanaysa Laascaanood inaad u kuur gashaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka Sool guud ahaan gaar ahaan Laascaanood hadeer kacdoonkii ummadda in la caburiyo maaha ummaddu ma rabto waxa la leeyahay ummadda dhibta laga daayo waan hubaa ma sii hayn doontaan Laascaanood war dagaalku ciidamadu ka dhaxeeyaa maxaa gaarsiiyay dumarka iyo ciyaalka iyo nindoorka aan dagaalba ku shuqul ka lahayn maxaa jeelasha ugu guraysan hadeedaan nafl caariga hayn waxaan leeyahay laga daayo dadka dhibta international community-gana waxaan leeyahay haadan iyo waxaan aad wadaan intaad iska daysaan waxa sababta xaqiiqada ah ee dhabta ah ee waxaan u dhacayaan taabta haddaad wax ka qabanaysaan wax ka qabta haddaad Laascaanood tagtaan jeelasha eega dadka xirxiran eega jeelasha waxa imika ku jira waa dadkii dumariyowgii iyo ciyaalkii iyo nindoorkii weeyaan jeelaka waa kii la jabsaday waa tii reer Laascaanood jabiyeen waa tii maxaabiistii oo dhan laga sii daayay waa tay ka gurteen lacagtii waxaad doonaysaa nafta inaad ku soo celisaan maamulka nafla caariga laakiin nafta ku soo noqon mayso dagaalkuna haddaan idin leeyahay wuu soconayaa international community-guna ma hayaan go'aanka ugu dambaysa ee dhulka yaga annaga hayna haddaan maamulka Puntland iyo shacabka Puntland Cabdisaaq Xasan Farax Puntland TV Garowe